waan idin salaamayaa dhammaan daawadayaasha daawanaya especially asxaabtayda facebooka iyo soomaali weyn oo dhan waa hoob abuukar oo idin leh maalin wanaagsan waa waqti qoraxda ay sii dhacayso waxaa kaloo leeyahay walaalahay masiixiyiinta ah axad wanaagsan waa waqti aan kiniisadda ka nimid maanta waa idin soo dhaweynayaa dhammaantiin maanta waxaan jeclaystay inaan wax yar idinla qaybsado qofka igu dhiirigeliyeyna waa odaygayga oo mar walba idhaha waa inaad gashaa waa inaad duubtaa only ha qorin because waxyaalaha soo qorqoraa marka wuxuu igu dhiirigeliyaa inaan soo fadhiisto aniga ma ihi dadkaas jecel inay soo fadhiistaan kaamirada laakiin ilaaha ugu mahadnaqayaa odaygayga oo igu dhiirigeliya mar walba inaan la qaybsado waxyaalaha aan jeclahay inaan dadka la qaybsado waxaan u malaynayaa waxay ka timid cuqdad nagu jirta iyo dhaqankii aan kusoo kornay iyo sida aan nolosha u baranay iyo xishoodka sida markaa yar tahay lagu dhahayo naaxisho xisho heer waxaa gaaraysaa kalsoonida dhumiso oo ay kugu adkaato inaad dadka hortiisa ku hadasho ama aad camera soo gasho heerkaas ayay gaaraysaa laakiin hadda xoogaa yar trainna igu socdo oo ah iyo dhiirigelin ah may waa gelaysaa hadal marka waqtiyo badan oo soo socda oo ay arki doontaana u malaynayaa si ay idinla qaybsado waxyaalaha qalbigayga ku jira maanta waxaan jeclaystay inaan soo duubo munaaqasho ka dhex dhacday aniga iyo odagayga oo ahayd yaa kalsooni aan siin karnaa ama yaan qiimeyn aan siin karnaa ma atheistiga mise muslimiinta dadka kale oo diinta haysta marka aniga iyo asagaba laba fikro kala gedisanaan leenahay isaga wuxuu yiri aniga muslimiinta qiimeynaya inkastoo aan jeclahay asaga inuu naftiisa u hadlo aniga laakiin waxaa iri atheistiga ayaan isku hadlayn lahaa because sababtoo ah waan la noolaan karaa oo waddankayga waan la joogi karaa hadday iyaga hayaan xukunka dhibaato iguma keenayaan xorriyaddaydan ku noolaan karaa iyo doorashadayda aan ilaah ku doorto doesn't matter waxyaalaha ay ka sheegaan ama hadallada laakiin kama filanayo in qof atheist inuu dilaayo marka waxaan jeclahay inaa odagayga u waco oo nala qaybsado ra'yigiisa hay nuur soo galno had wanaagsan aad leenahay iyo maalin wanaagsan sida xaaskayga ay sheegtay halkaana u fadhiya aniga waa maqlaya waxdhiis maanta waxaan ka sheekeysanaynay ateistiga iyo muslimiinta yaa isku hadlayn kartaa marka aniga iyo xaaskayga waa ku kala ra'yi duwanaanay aniga waxaan dhahay muslimiinta inkastoo seeflabood yihiin oo diintooda ay u dhigaysa inay idilaan haddana muslimiinta isku hadlayn karaa sababtoo ah waxa waaye qofka ateistiga wax kasta waa ka suurtagal qof aan ilaahay aaminsanayn hilibkaada xataa uu cuni karaa hadduu rabo mogtahay ilan sharci celiya male imbeeshii qofka muslimka ahaaba waxaa laga yaabaaba inuu qaarkood dhahaan diintaba qabto qofkan in la dilo iyo maalmaha loo tiriyo iyo ugu yaraan sharci celiyo waa muslimiinta saxda aan sheegaya kuwa soomaalida oo afka le ka sheegta muslimiinta soomaalida qaarkeed oo afka le muslim ka sheegta nima sheegayay oo waxa ay samaynayaan macnaha xataa oo aysan macnaha ay u fiirinayn diinta ma qabta ay u fiirinayn marka aniga xaskayga taasaan kula doonaan macnaha waxaan idhi qof ilaahay aaminsan oo ilaahay yaqaano qasi qaladaba hadduu rabo ha u fahmo isaga waa sida aniga aan aaminsanay la tahay iyo qof aanba ilaahay dhan garanayn way kala duwan yihiin aniga aaday igu kala duwan yihiin qofka ilaahay yaqaan aan qiimeynaya inkastoo bini aadamka oo dhan aan qiimeeyo aniga laakiin haddii la yidhaha labadaas atheist iyo muslimka yaad maanta aad qiimeynaysaa aniga waxaan qiimeynayaa qofka muslimka waayo qofka muslimka ugu yaraan waa qof wax ka qaldanaada laakiin ilaahay aaminsan oo sharci leh oo wax un leh oo xataa og hadhow markuu dambaabo inuu wax ku dambaabo laakiin qofkan kale atheistiga ah
waxa waaye xad celiya male inkastoo qofka bini aadanka dee damiir uu celiyo oo bini aadanimada laga wada siman yahay laakiin aniga qof muslimkaan adiga hadda waa soo qaado waxaa tiri sharciga qof sharci leh so sharciga ayaa celiyaa tiri ma ogtahay so hadda haddaan dhahno sharcigooda waxay tahay inuu adiga ku dilo ha taasaa horta dhibe inkastoo isku wada raacsaneen dadka muslimka ah oo dad muslim qaarkood waxaa jira dhahay dee qofka lama dilaayo oo sunniga weliba qaar sunniga kuwa quraaniga iskaba dhaaf iyo qaar xataa diintooda waxay qabtaan samaynaynaa jiro mugtaa qofka muslimka qof walba muslina xataa hadduu aaminsan yahay in lagu dili karo ma u malaynaa inuu ku dilaayo kulligood in isku wada macnaha qaar badan oo muslina waxaa rabin inay qof dilaan tusaalehaan aniga hadda waqtigaa muslimka ahaan jiray waxaa dhacday tafsiirka marka naloo afriyo ama xadiisya naloo sheego oo culimmada ay dhahaan gaalada waa lala jihaadi kara aniga waxaan dhihi jiray anoo yaraa waxaan dhihi jiray wax kasta oo kale waa sameynaa laakiin qof bini aadan ma dili karo laakiin kaas waa damiirka damiirkaasna macnaha waxaan ka wadaa dad badan oo muslimiin oo waxaa jira sidaas oo kale aaminsan inaan qof la dilin xataa diintooda ha qabta hadday rabto ya okay qaaraa tiri qaar laakiin sharciyaa jiro ay ku dhaqmaan sooma iyaga marka ay wax dilayaan waxay u haystaan inay kooska oo ilaahooda ay u sameynayaan inay janno ku tagayaan aad iyo aad ma fahantay yacni kuma dhahaayo dad badan oo wanaagsan way ku jiraan oo damiirkooda ka celinaya laakiin ninka atheistiga ma uu haysto qaanuun ku qasbaaya inuu qofkan kasoo yacni diinta haysta ama ilaah caabudayo u dilo yacni sidaasa aniga u dooran lahaa oo aan nabad kula joogi lahaa oo aan dareemi yacni waxaan ku seexan lahaa anoo og inuusan waxba igu samaynaynin because bini aadan kastoo horta damiiru leeyahay laakiin waxa damiirka ka qaadi karo waa sharciyada oo especially kuwa ilaaha ka imaado okay waa ku waafaqsanahay laakiin dhinaca kale kan sharci ma laha tiri kalaasiisa sharci laakiin dhinaca kalena sharci la'aantaasa waxay u keeni kartaa wuxuu rabo inuu sameeyo waayo qofkan kaloo muslimka wax unu xeerinaya moogtahay wixii haba ka qaldanaadaan oo si qalad ah u fahmo hadduu rabo ama si qalad ah loogu sheego laakiin waxa uu xeerinaya ugu yaraan waa qof aad dhihi kartid macnaha ilaahay ka yaab aad dhihi kartid haddayba yeelaan qaarkood ya nuura waan runta isku sheegno maya qaarkood ma yeelayaan laakiin waa macnaha waa un qalbi jilaac yaraa ku jiro qofka ilaahay markuu yaqaano runtii aniga saasaan aaminsanahay aniga waxaan arkay dad oo ilaahay yaqaano oo dadaan ilaah aqoonin oo atheist ah oo aad iyo aad ugu qalbi jilcan oo ugu naxariis badan oo xayawaanka u naxariista oo bini aadanka u naxariista oo human rightska yaqaana marka in reality that is waa ra'yigaaga annagana waa ku kala gedisnaan karnaa ra'yigeena laakiin reality run ahaantii waxaa aniga ii badan oo qofka atheistiga ah ama horta ma ogtahay qofka atheistiga waxa gaarsiiyey inuu atheist noqdo inay tahay naxariis uu ka raadinayo ilaah inay tahay ma ogtahay horta because badankooda waxay dhahaan hadduu ilaah jiro maxay dhibaatadan u dhacdaa mid maalinlahaas waxaan arkaya buuga maalin hore aqrinaya waxaa la dadka atheistiga dadka ugu fulaysan waayo marka cabsi ay ilaahay ka qabanayeen naar iyo waxaas dhan oy ilaah dhan ba caayaan ee uga cararaan macnaha qaarkood ma caayaan laakiin qaarna way caayaan macnaha cabsi dadka ugu fulaysan waayo buug psychology maalinlahaas aqrinaya waxaa la dadka atheistiga dadka ugu fulaysan waayo macnaha shakhsiyadda buu ka sheekeynaya marka hadda marka waxa waaye waa jirtaa qof waxaa jira masiixi qof muslim oo qof masiixi ka fiicanaa jiro qof masiixi oo qof muslim ka fiicanaa jiro qof atheist oo qof masiixi ka fiicanaa jiro qof atheist oo macnaha shakhsi marka loo fiiriyo shakhsiyadda bini aadanka way kala duwan tahay oo waxay ku xirmi kartaa qofka wuxuu meeshuu kusoo barbaaray ama sidii ilaahay uu dhaliyo qofka ilaahay way kala duwan yihiin dadka laakiin waxaan ka wadaa guud ahaan aniga runtii atheist waa ka cabsadaa qof atheist oo ilaahay aaminsanay qofkaas waxaan idhaahdaa nuura ma runta sheeg qofkaas waxaan idhaahdaa wax maskaxdiisa kusoo dhaco samayn kara aniga saasaan iskala dhiciyey marka horta nafta runta in lagula hadlaa fiican moogtaa ya realitygii waa naqaanaa annaga hadda waxaa waddankeena uga soo tagnay oon banaanka u joogno
oo u dhibaataysannahay oo waddankeena kheyraadkiisa iyo canuuni iyo marcood iyo isbaandheys iyo aan meel kale ka arkin aan cuni karin sababtaas maxay tahay sababtaas waa muslimiinta laakiin ma u maleeyo nin atheist hadduu xukun haysto ama waddanka uu hayo inaan aniga ka cabsan lahaa waxaa lee ogolaan lahaa inaan xuquuqdayda sida kuwa kale ugula noolaado okay waxaana waaye qofka oo markuu xoroobo يعني وكحروب wax kasta oo caburin ah ama fikir walba oo lagu qufulay marka uu ku xiroobo wuxuu naftiisa u ogolaanaya inuu dhinacyo badan uu ka fiiriyo nolosha badankoodna waxa arkaysaa waxay ixtiraamaan human rightska laakiin waa u jeedaa kan wax dilaya waa mid u maleynaya oo fikirkiisa lagu xabisay ama lagu xiray in uu janno ku tagayo waa haddiiba ay qaarkood samaynayaan wax sameey horta way yaryihiin runta haddaan kuu sheego dadkan oo argixisada iska ele waxaas ayaga laftirkooda dee waxa waaye way isbedelaan waa aragnaa da qaarkood markay wixii jannadii iyo wixii sheekadaas inay run ahayn arkaan way isaga tagaan laakiin macnaha laakiin hadday isaga tagaan badankooda kaa dhexgalee hadduusan xataa wax dilaynin wuxuu support gareeyaa qalbiga ka aaminsan uu ku riyaaqaa ninka wax dilay hadda waxaa dhacday hadda ka hor baby hadda ka hor waxaa dhacday nina iihan jabi jiray dad badan iihan jabi jiray niman naaga leh naaga horta waa markay iihan jabaan waa la yaabaa laakiin nina iihan jabi jiray oo halkan degan Nairobi degan Islii degan marka ayaan waxay ahayd zaid dadka ay macnaha noogu kacsanaayeen oo nina maalin walba message isu diri jirnay Nairobi aan isla joognaa waa ku raadinayaa waa ku arki doonaa intaan kugu dhigay maalin dambe waxaan dhahay niyo aba jeclaan lahaa inaan macnaha is aragnaa haddii halkan joogtid waayo halkan dee waddan waxaa lagu sheegaa masiixi inuu yahay allaha waddanka waddan masiixiinta u badan macnaha dadka masiixiinta marka waxaan dhahay sidee adigoo muslim ah anigoo masiixi ah waddan masiixiin ugu badin ay ugu dilaysaa ayaa xaq u sii adiga markii dambe ninkii muddo kadib beelad kadib anoo Islii maraan is aragnay asagii iihan jabay وانا أقانا نينك واسنا قانا فيسبوك واسكو نقاني من سوركي سقري ماهن بنانك وصارنا أنا نمر من إن دعوة وقف أو أن وانا فهم أي سومالي إن أنت بدنسك هذلان وكنت لها تذكر حيوتها وحسك عادي ذات كان كلو أجنبي قاوي كل يابين سوما غفة دادا وكنت لها صونا وقادنا سومالي ذلك وكنت لها وحسك عندك نينكي معناتي استيا سكارنا سيفي عنو يسدوي مقاعدة سلطقني وسلقذيني ويقول سو بودني ويقرا لها وحس هذا اللي إجا هاد أنا معناها قفينا نديله مرة ويقول راح أنا أنا وش أقول حنا وأوجاي عند يولبو أوجاي ردت كان أفك هذلان وح إكربت تهاي قفك إكربت هاي أو الربي إنه قف دلو وأمشي يا قفكاس أنت بدل ما هذلان يا مركا فيري بعتقد حكتها الله قفك قانون اللي يقول رقم أما مبدأ اللي so dhibaatada ugu badan oo soo waajahday dadka muslimka waxay yihiin waxa lagu qufulay aragti hello how are you okay waxa lagu qufulay aragti aragtidaasna waxa lagu xiray wax aan la taaban karin because bini aadan walbo wuxuu ka cabsadaa marka aad dhimato waa reality kaliya waa runta kaliya oo la taaban karo waa dhimashada so bini aadan walba wuxuu ka cabsanayaa markaad dhimato maxaa dambeeya marka fikir waxaa lagu xiray sayfaa noqonaysaa waxaa rabtid waa helaysaa ilaahna wuu kugu farxayaa haddaad يعني هأقولان قفانا مسلم حين هأقولان كولما نولان كرو وكافر وانا ديلي كرتا انكستو قاركود اي دهيان وشرع شريعة إسلامية إني ماشي جفتو مركو قفك مسكحديسة تاس اي كو حيرانتهاي ان مجرو ميلا اوغفكتو لكن نينك ايثيستيغا waxa xukuma waa damiirka qofka soo bini aadan iska leh
qofka muslimka xataa wuu leeyahay laakiin qofka muslimka damiirkaas waxa aamusiyey inuu qof kala dilo waxay tahay sharciga looga sheekeeyey inuu yimid oo ah ilaah baa kugu farxaya qofka muslimka qaarkood dadka muslimiinta kulligood asmaa fiiri dhibaatada waxay ka taalaa mataqaanaa buugga ay ku dhaqmaan wax walba manual leh buugga ay ku dhaqmaan oo la yiri hadalkii ilaah waaye ayaa u sheegaya kuwan kaafiriin waaye kaafirinta hala dhaqmina naca qalbiyadiina ka naca jidka ku cariiriya ma sameeyaan hadda beebi ma sameeyaan waa macnaha way isaga qoran yahay ma hadda tusaalaan diintooda waxay u dhigaysaa qabyaaladda inay iska dhaafaan qabyaaladda inay xun tahay hadda kulligoodna way sameeyaan macnaha dadka Soomaalidan ka hadlayna ama muslimiinta guud ahaan adduunka dhan ma ku dhaqmaan diintooda waxa ku dhaqmay wax iska yar waaye macnaha minta yarne kulli damiira u diida qof kala dili kara male Soomaaliya hadda anaga dhibaatadeena aan soo koobno warkan waa dheer yahay laakiin dhibaatadeena aniga waxa u dooran lahaa atheist aan isugu hadlayn lahaa aan ula dhaqmi lahaa waxay tahay waan ka nabadgelayaa wadankayga waa kula noolaan karaa waan wada sheekaysan karnaa ilaan ima dhahaayo kaafiraa tahay waxba kulama cunaayo kulama dhaqmi karo kulama sheekaysan karo because kaafiraa tahay ima dhahaayo maanta dhan laakiin wuxuu u furan yahay inaan meel ku wada noolaan karno سوي نبت كلي بيبي سوي نبت كلي دكان إله أنا سوي نبت كلي هذا محا قف إله بحرمته هينين أسقوا عايتمي أوكي قف إله بحرمته هينين أنا يوم مالينا حرمة إنه قف بني آدم وهين كر لكن وأوها يعني قاركود وأوها يعني صد مدي كرقار ويجران لكن أنا كل ما أمين كرقف إلهي أنا أديك هذا فيري banaanka ka joogtaa wadankaagii shaqadaadii noloshaadii waxaagi dhan waa laga soo waday sababta uga soo baxday sababta uga soo baxay waxa waaye horta waa runta qayb way ka tahay iimaankayga qayb way ka tahay qayb kalena dad badan oo muslimiin ah qaxeen oo ka qaxeen Soomaaliya oo ka carareen aniga waxaan qayb ka ahay dhibaatada wadanka ka taagan tusaale ahaan waqtigii siyaad bare wadan muslim ah Soomaa siyaad bar abtigay hooyadii la dhashay ayeeyday يا أيدي لنا عهوية يا بتيجي هوية لا شيء مسيحيين هاي ودن كين جوين معناه عن كذا الدولة اللي أنت كيني سمعني صوماليا هذه الدولة نقطة دولة شرعي كذا بين كجرا وقت جاس والله ما لانكرا وقت جاس أيدا إن شريعة إسلام كصحة اللي قمت دقمين هذا ما أنت صومالي وأردت قفل بو صومالي أما دبدة جوج أما جدها كجرو جلباب وتا قمدي وتا وحس عبسدا وكينس دد كان مش خبضتي مركه قفل بو عدها إله وعبسنا مالك أنا لا ودا ما نجد وحس وحجابك يا قميص كان أركن دد كانوا بدينا كل رأي برنامج كان هذا كده مناسب بدينا هذا محي كل تعدين تنا كسو قلنا إنه رأينا إنه حرنا عن قيبنا أو ذاتك حتى عن أنصق قلنا لايف عدي دعوه دعك كرتو مركا أيه ما كسو قبين هذا نيجي كسو قبين لها وحواي نيني ناقص طبعا هاي وكل رأي دونا كرنا وكل فكرة دونا كرنا أنه مدول بكو أتكي سنين رأييسا ودا قيبسن كرنا أما سأنك الرأي دونا أنا شكو دلين رأي كل دونا تعب معها لكن أنا حنجعلها إن لو بندقو إن داودياشا رأي جودا نلا قيبسدان إن وح كقبان إن especially دتك إن دين تكتري كافرين إسلام كتري كافرين والله الشباب نقولون يا أخي أيه والله يا dadka diinta ka tagay inay sheegaan ma atheist jeclaan lahayd aamini lahayd mise Somali Muslim marka su'aal way su'aashaas shaqo guri ah oo qaadanaysiin laakiin waxaan rabaa inaan apology u bixiyo saaxiibaday muslimiinta ah walaalahay muslimiinta ah إن أنا كما وضو يعني حمان كما وضو قلبي يس قلبي atheist أمن لها because شرعي كقص بايا إنه أنا إنه أما إفقوقه
ma haysto ay gonaantii gabagabadii halkaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennan waxaan ku bilownay runta ku xoreyso runta ku xoreyso waxaan ku bilownay cod laakiin hadda waxaan jecelnahay runta ku xoreyso inaan u soo gudbino si muuqaal ah marka kulligiin waa mahadsantihiin intan daawanaysa rabbigaa idin barakeeyo salaam alaykum dhamaantiin